kobcinta awoodda ka qaybgalka iyo xal u helista caqabadaha siyaasadda ee haweenka dhalinyarada iyo naafada ee gobolka Banaadir ayaa ciwaan u ahaa dood ay soo qaban qaabisay Raaxa Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xisbiyada dalka, haweenka dhalinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka soo qayb galay. Cabdinuur Sheekh Mursal oo ka tirsan mas'uuliyiinta Raaxa Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka dooda. Hay'adda Raaxo waa hay'ad local NGO ka dhisan dalka Soomaaliya, la aasaasay 2009. barnaamijyada qabato waxaa u badan xuquuqda bini'aadamka, dowlad wanaagga, caafimaad, tacliinta iyo wax kaloo fara badan. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socda xisbiyada dalka ayaa soo dhaweeyay dooda ay soo agaasintay Raaxa Soomaaliya. aad iyo aad u qiimo badan oo loo baahan yahay in la taabageliyo sida ay dadkii ugu horeeyeenba hore u cadeeyeen. dhalinyarada markaa ka hadlo, dhalinyarada waa tiirka koowaad oo wadanka u soo baxayo, waa dadka wadankani oo mustaqbalka ku istaagi doona insha Allah. haweenkana waa dadka ugu horeeyaba, macnaha waxa weeyaan dadka qof walba mas'uul ah, qof walba maanta horumar gaaray, dadka soo gacan qabtay oo heerka maanta ay taagan yihiin soo gaarsiiyay weeyaan. haweenkana especially aniga barnaamij arrinta haweenka ayaan rabaa inaan dhiirigeliyo. haweenka waa hooyadeena, waa walaalaheena, waa xaasaskeenna, marka in muhiimadda koowaad la siiyo oo siyaasadda ka qaybgalkooda iyo qaybtooda la siiyo aad baan runtii xisbi ahaan iyo shakhsi ahaan intaba waa taageersanahay. xildhibaan Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo qaybka mas'uuliyiinta ka qayb galaya ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay haweenka dhalinyarada iyo naafada inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka. saddexda qaybood ee haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qababa cidda ugu daran ee xuquuqdooda duudsiyaysaa waxa weeye waa qabyaaladda weyn. saddexdaaba qabyaaladda ayaa duudsiyay. saddexdaasiba waxaa laga rabaa inay qabyaaladda horta ka xoroobaan. haddii taasi aanu ka xorowno, dagaalka ugu weyn aynu ku qaadno qabyaalad iyo reernimo in aynu ka xorowno oo ka geeska koornaha degan Soomaaliya iyo ka degan xuduudka Kenya degan ay isku xidhnaadaan oo networking la samaysto oo gabdhuhu isku heeliyaan dhalinyaraduna isku heeliso oo aanay qabyaaladii kala qoqobin. waxaan u malaynayaa arrimaha hadda aad sheegaysaan oo dhan waa laga xoroobi karaa. si aanu dhiirigelinayno hadday suuragal noqon weydo inay bulshadeennu ay weli doortaan si tartan furana inay gabdhaha Soomaaliyeed ee kartida leh u doortaan in loo sameeyo kootooyin xidhan oo iyaga keligood ku tartamaan. taas in loo sameeyo ilaa aynu ka gaadhayno in bulshada garaadkeedu isbedelo oo ah gabadha kartida leh inay iskeedu soo baxdo, doorasho xorana ku soo baxdo, ragga la tartanto, inay taasi dhacdo sida meelo badan adduunka ka dhaca. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gala dooda looga hadlayay hanaanka siyaasadda ee dhalinyarada, haweenka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka socda wasaaradda haweenka iyo wasaaradda dastuurka ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in ay helaan dadkaas xuquuqda ay ku leeyihiin dalka, gaar ahaan siyaasadda. siyaasadda looga jiro baarlamaanka 124 waxaa iska kaashaday ururada arrimaha haweenka ka shaqeeya oo rag iyo dumar leh, ururada xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo haweenka Soomaaliyeed oo arkeen in maaragtay ay u baahan yihiin inay istaagaan kootadooda. dastuurka arrimaha naafada wuxuu aad u tixgelinayaa in la siiyo fursado ay shaqooyinka ugu wanaagsan dalkan ka heli karaan. masalan qof baa injineer ah laakiin waa naafo, ma kori karo meeshii dabaqa 10aad ma kori karo, marka baawur ma kori karo, bas ma raaci karo. waxaasoo dhan dastuurka waxaa la rabaa in lagu caddeeyo inuu heli karo facility uu ku tegi karo intuu imtixaan galo, inuu injineer noqdo, meesha shaqada ku tegi lahaana loo fududeeyo. lifti gaar ah, baawurra gaar ah, meel ka xiran inaysan jirin ayaa dastuurka la rabaa in lagu caddeeyo. si fiican in loo fahmaa la rabaa. dadku naafada ma aha shaqadooda inay hor istaagto naafanimadooda. dastuurka laga rabaa in hadda dastuurka gacantaad ku haysaan ma ku jiraan? waa ku jiraan, arrimaha laga shaqeynayo ku jiraan. wata su'aasha xildhibaanka si marka xildhibaan haye. marka haddii aad tahay qof Soomaali oo muwaadina, haddana aad tahay qof xaq u leh inuu ka qayb galo arrimaha siyaasadda, looma kala saarin
haweeney dhalinyaro iyo baahida gaarka looma saarin waxaa la xoojiyo waa muwaadinka Soomaaliyeed marka inta waxay ka kooban yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay geedi socodka siyaasadda aan laga harin oo dadka halkan fadhiya ama hay'adan barnaamijka ay keenta aan laga harin aad active loogu noqdo siyaasadda axsaabta dalka ka abuurmaysa soo socota laga qayb qaato haweenka ayaaba nasiib u helo marna dhalinyarada ku jiraan marna haweenka ayaaba laba goos wax ku cunaan marka waxaan qabnaa waxaa waaye arrinta iyada in aad xoogga saartaan dastuurka idin ogol adiga haddaad tartanka ka harto yani waxaa laleeyahay halkan dalka Soomaaliya ama dunyada meel walbo tirada haweenka u badan laakiin haweenka isma doortaan haweenka waxaa loo baahan inay isdoortaan oo maxaan ku dhahdaa qofkada actifka ay keenaan inay gadaal u hadaan isu dooranayaan yani usan gadaal u harin marka taa waxaan kusoo korinaya waxaa weeye tirada wax dooranaysa dalkan idinka ugu badan uma baahan idin in adiga kuwataan bis waxaa la gabdho inay axsaab furtaan axsaabta waa rag ay ku biiraan kadibna ay candidates ama dad tartamay ay keenaan ee aydan xagga dambe gelin